dib u eegista iyo qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaarka shaqaalaha rayidka ee dowladda ayuu ku saabsanaa isku imaatinka madashan taasoo qayb ka ah dib u habeynta qorshaha horumarinta maamul wanaagga iyo hufnaanta hay-adaha dowliga ah ee maamulka hay-adaha shaqaalaha iyo maamulka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa daafuray barnaamijkan oo qayb ka ah tallaabooyinka lagu muujinayo mudnaanta iyo muhiimadda shaqaalaha rayidka oo laf-dhabar u ah howlaha dowladda iyo adeegyada ay shacabka u hayso laguna dhiirigelinayay kor u qaadidda xuquuqdooda. waxaa farxad weyn ah inaan maanta idinkala soo qayb galo kulankan muhiimka ah ee lagu daafurayo dib u eegista iyo qiimeynta qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda. tani waxa ay qayb weyn ka tahay habeynta ballaaran ee ku socota dhisidda maamul wanaagga iyo hufnaanta hay-adaha dowliga ah haddii ay ahaan lahayd dhinaca maamulka hay-adaha dowliga ah shaqaalaha rayidka iyo dhinaca maamulka maaliyaddaba intaba. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa xuseen barnaamijkan uu yahay mid ahmiyad weyn u leh shaqaalaha dowladda tilmaami doonana aqoonta iyo waayo aragnimada ay leeyihiin inay ku helaan mudnaanta iyo mushaarkooda. hadafka guud ee laga leeyahay qiimeynta iyo dib u eegista qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaarka waxa ugu muhiimsan waa helitaanka qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaarka shaqaalaha rayidka oo leh heerar degan oo fixed ah oo koritaan leh oo qofku uu dalaci karo mushaarkiisu siyaadi karo hadda si ay ku xiran tahay kartidiisa iyo aqoontiisa ay ku xiran tahay inuu ku dalaci karo. ujeedooyinka gaarka ah laga leeyahay hawshan qiimeynta waxay yihiin qiimeynta shaqooyinka in la qiimeeyo shaqada la qabanayo qofku qabanayo shaqooyinkiisa inay qiimeysan yihiin iyo diyaarinta dhammaan waajibaadka shaqooyinka shaqaalaha dowladda qofku inuu leeyahay oo la og yahay waajibaadkiisa waxyaabaha looga baahan yahay in la diyaariyo qiimeynta karti xirfadeedka shaqaalaha hay-ad walba dadka in lagu kala hormariyo habba kartida iyo xirfadda uu leeyahay shaqada uu qabanayo qiimeynta qaab dhismaadka darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha ee hadda jira in iyagana qiimo lagu sameeyo dibna loo fiiriyo qiimeynta heerka dhaqaale ee nolosha iyo mushaarka ugu yar ee dalka sida waxaa loo yaqaano minimum wage qofku wuxuusan qaadan mushaarka ugu yar oo qofku uu qaadan karo in la qiimeeyo la og yahay. dowladda Soomaaliya ku dadaalaysa hirgelinta siyaasad iyo shuruucda laga maarmaanka u ah dib u habeynta qaab dhismeedka hay-adaha shaqaalaha rayidka iyo hanaanka maaliyadda. hay-ada leh qaab dhismeed degan waajibaadyo darajooyin iyo shaqooyin qeexan leh waad la socotaan inta badan shaqaalaha xafiisyada nagala shaqeeyo iyo isla hay-adahan ka shaqeynaba badanaa ma haystaan job description ama howl qeexyo ku qoran waxa ay qabanayaan iyo cidda kale xisaabtamaysa iyagana cidda mas-uulka ka yihiin iyagaba cidda mas-uulka ka ah. tan labaad shaqaalo leh hanaan hufan oo ay ka soo galaan kagana baxaan shaqada hay-adaha dowladda. waad la socotaan hadda xafiiska aan joogay xafiiska ra-iisul wasaaraha shaqaalo badan ayaa ka shaqeeya markaan runta idiin sheego shaqaalahaas qaar waa maqan yihiin qaar way joogaan qaar way ka tageen weli ma qeexna kuwa jooga kuwa ka tagay kuwa shaqeeyo marka waa in la helaa hanaan lagu ogaan karo shaqaalahaasi waxa ay qabtaan halka ay jiraan kuwa jooga kuwa shaqada wanaagsan qabta iyo kuwa maqanba. midda saddexaad oo loo baahan yahay waa hufnaanta nidaam maamul maaliyadeed oo dhammaan hay-adaha dowladda ay wada leeyihiin. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa hay-adaha kala duwan ee dowladda ku booriyay inay ka qayb qaataan hirgelinta barnaamijkan si looga miro dhaliyo isagoo tilmaamay inay laga maarmaan tahay shaqaalaha dowladda ay helaan fursado muhiim ah si ay qayb uga noqdaan horumarka la hiigsanayo. waxaan kasoo jeedaa background hay-ad shaqaale dadka consultantiga aan u qaadano runtii subaxii waqtiga loogu talagalay ayay yimaadaan shaqada waqtigii loogu talagalana way baxaan 8 saacadood oo full ah laakiin waxaa moodaa hay-adaheena wasaaradaheena xafiisyada dowladda consultantska ku qoran oo ay siiyaan hay-adaha caalamiga ah waqtigay rabaan ay yimaadaan marka waa in lala yimaadaa isla xisaabtan sax ah. wadankan shaqo badan ayaa u taallo shaqaale badan ayuu u baahan yahay waxqabasho badan ayuu u baahan yahay si looga gudbo heerka aan maanta joogno loona gudbo heer wanaagsan waxaana looga gudbi karaa in qofka Soomaaliga ah uu shaqeeyo ugu yaraan 8 saacad ama wixii ka badan laakiin ma u dul qaadan karno mana ka yeelayno in shaqaale iska maqan ama shaqaale waqti yar 2 saacadood 3 saacadood subaxii duhurka yimaada iyagoo barfuunkooda leh saacad kadibna iyagoo carfaya shaqada ka tagaan. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.